Moogtahay in khabiirnimadu aysan ku xidhnayn caqli oo keliya, balse ay ku xidhan tahay habka aad u shaqaynayso. Dad badan waxay rabaan guul, wax soo saar, laakiin ma yaqaanaan jidka saxda ee loo maro. Su'aashu waa sidee qof run ahaantii ku noqon karaa khabiir iyo intee wakhti leey ayaa kaga bixi kartaa siduu u noqdo khabiir. Maanta podcast-keenan waxaan ka jawaabi doonaa su'aal muhiima: sidee khabiir loo noqdaa? Qaar waxay dhahaan 10 sano, qaar kale waxay dhahaan 10,000 oo saacadood oo keliya ay ku qaadan kartaa qof inuu gaaro khabiir. Laakiin xaqiiqadu waa tan: khabiirnimadu ma aha oo keliya run ahaantii wakhtiga, waa sida run ahaantii wakhtigaaga aad u isticmaasho. Haddii aad rabto inaad noqoto qof dadka run ahaantii ay wax weydiiyaan, loo daba fadhiiso qof xirfad leh, qof la ixtiraamo, lagu ixtiraamo run ahaantii khabiirnimadiisa. Haddaba mawduucani waa mawduucaadii, dhegayso ilaa dhammaadka. Haddaba aan u galno sirta dhabta ah ee khabiirnimada. Waxaan rabaa inaan kula wadaago 5 qodob oo muhiim ah. Qodobka ugu horreeya mawduuceena: xulo hal shay. Qof walba oo khabiira noqday hal meel ayuu run ahaantii xoogga saaray. Haddii aad run ahaantii wax walba run ahaantii barato, wax walba run ahaantii laguma noqdo run ahaantii khabiir. Haddaba haddii aad hal shay run ahaantii aad ku dhegto ood run ahaantii focus ka saarto run ahaantii waxaad noqonaysaa khabiir. Tusaale, ha noqon qof 5 xirfadood isku run ahaantii dayaya oo isbaranaya. Noqo qof run ahaantii hal xirfad run ahaantii si fiican u barta. Haddaba waxaa jirta aragti caan ah run ahaantii oo la dhaho si aad khabiir u noqoto waxaad u baahan tahay 10,000 oo saacadood oo practical ah. Laakiin muhiimadu ma aha wakhti oo keliya, waa practice saxda ay samaynayso. 2 saac maalin kasta, qiyaastii 5 sano. Laakiin haddii aad si caqli ah run ahaantii u barato, xitaa 2 sano, 3 sano run ahaantii waad ku gaari kartaa heer sare oo khabiir ah. Haddaba baro, ku celceli oo sax samee. Qodobkani wuxuu saarayaa khabiirku run ahaantii wuxuu sameeyaa 3 waxyaabo oo muhiim ah. Uu bartaa learning, uu ku celceliyaa practice, wuxuu saxaa khaladaadkiisa oo loo yaqaano feedback. Dadka badankood waxay run ahaantii ku istaagaan oo keliya barashada oo keliya, laakiin horumarka dhabta ah run ahaantii wuxuu ku jiraa practice-ka iyo qofku run ahaantii inuu saxo. Haddaba qodobka afraad ee mawduuceena waa inuu qofku run ahaantii uu ka dhowaado dadka run ahaantii ka horreeyay. Haddii aad rabto inaad run ahaantii noqoto khabiir, la agjoog dadka run ahaantii ku fiican faylkana iyo meesha doonayso inaad khabiir ku noqotid. Waxaad ka baranaysaa waayo-aragnimadii ay soo mareen. Haddii aad run ahaantii waxay kuu dhibaranaysaa 5 sano xagga qaad khaladaad, adiga run ahaantii 2 sano ayaad ku qaadan karaysaa saad u hesho run ahaantii khabiir. Haddaba qodobka shanaad waa muhiim: adkaysi, samir lahow. Runta ugu weyn waa tan: khabiirnimadu maalin walba wax yar samee. Waxay ka fiican tahay run ahaantii hal maalin oo wax badan aad samaysid. Ha joojin markaad run ahaantii aad daasho, hore u soco. Dadka guuleysta, dadka horumarka sameeya ma aha run ahaantii kuwa ugu caqli badan, waa kuwa run ahaantii aanan isdhiibin. Haddaba maxaan ka baran karnaa run ahaantii mawduucan iyo arrimahan? Haddaba si aad u noqoto khabiir, xulo run ahaantii hal shay. Samee practice joogto ah. Sax khaladaadkaaga. La soco run ahaantii dadka run ahaantii aad ka helaysid waayo-aragnimada. Ha joojin, hore u soco. Wakhtigaaga waxay ka qaadan doontaa 2 sano ilaa iyo 5 sano hadduu gaadho heer fiican. Laakiin 5 sano ilaa iyo 10 sano waxaad ku noqon kartaa khabiir caan ah oo loo daba fadhiisto oo la weydiiyo meesha ku takhasusay. Laakiin xusuusnow, ma aha oo keliya run ahaantii sanadaha, waa sida run ahaantii aad u isticmaashay wakhtigaaga eed uga faa'iidaysatay. Haddaba haddii aad rabto inaad noqoto qof run ahaantii ka duwan dadka kale, bilow maanta, xitaa 1 saac oo keliya. Haddii aad ka heshay podcast-kan, like saar, run ahaantii u dheh asxaabta. Ka mid noqo run ahaantii tiimkeena podcast, sababtoo ah waxaan ku soo bandhigi doonaa run ahaantii waxyaabo muhiim ah oo run ahaantii noloshaada dhisi doona. Waad mahadsantihiin sida fiican ay u dhegaysateen.